barnaamijyadaan idinkugu talagalnay waa barnaamijkeennii labaad waa barnaamijkii galabnimo maanta oo ah maalinimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 11 Janaayo sanadka 2026 qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah xilligan aan idinla hadlayo Trump waxa uu ku jiraa shir muhiim ah oo ku saabsan qaabka ay weerar ugu qaadi karaan Iran gobolka bariga dhexe oo cabsidii ku sii kordhayso masaacadaha soo socda ayaa weerar ku dhici doona mise maalmaha nagu soo aadan haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinka oo aad loogu dhegtaagayo ayaynu barnaamijka idinkula wadaagi doonaa mas'uulkii ugu sarreeyay xafiiska Netanyahu oo isagana la xiray su'aalana la weydiinayo haddaba maxaa lagu haystaa waan idiin soo gudbin doonaa Cuba iyo Trump oo ishaya Trump oo ku hanjabay in Cuba uu madaxweyne uga dhigi doono wasiirkiisa arrimaha dibadda Marco Rubio haddaba sheekooyinkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa iyo saacadihii la soo dhaafay weeraro cirka ah oo Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan qodobadaas iyo labaad maanta waa maalinimo axada waa barnaamijkii galabnimo haddaba barnaamijka oo dhowr qodob aynu kaga hadli doono waxaynu ku bilaabaynaa arrinta Iran oo meel halisa maraysa Trump oo ka labaynaya inuu ogolaansho bixiyo in la weeraro Iran iyo in kale haddaba hadda aan idinla hadlayo telefishinka Al Jazeera waxaa saaran war degdeg ah wuxuu leeyahay journaalka la yiraahdo Bloomberg ee Mareykanka ka soo baxa oo soo xigtay mas'uul sare oo aqalka cad ee dalka Mareykanka ah ayaa wuxuu sheegay Trump inuu xilligan daraasad ku hayo ku saabsan habka iyo sida loo weerari karo Iran hadduu bashir ku jira maxaa xagee ka weerarnaa maxaa dhici kara haddaan weerarno haddii jawaabtoodu ay noqoto saldhigyada maxaa laga qaban karaa alli marka hadda waaba la guda galay dhanka kalena Israa'iil Netanyahu golihiisa wasiirada ayuu shir degdega isagana la leeyahay ku saabsan xaaladaha Iran ka soo kordhay marka waxa soo dhan marka la isku sawiro waxa leeyahay nimankan inay Iran weeraraan way rabaan ay uga faa'iideystaan mudaaharaadyada waxa kan laakiin 24 saac ee la soo dhaafay Iran mudaaharaadyadii meel saartay wala xakameeyay meel la saaray wixii kale joogsan waayana dad kale oo shacaba oo dawladda taageersan lagu fasaxay markaas bud iyo faasas la dhacay nin walba gurigiisa ku cararay marka sheekadii Iran waxay leedahay waa soo afjarayna waxa kan marka hore dadku waxaan leen jooga laakiin way diiday mid xabad la dhacoy mid baangad lagu dhuftaa laga dhigay Trump soo socaaliyay marka hadda marka waxa leeyahay aqalka cad waxay leeyihiin hadda shirka ku jira laakiin saacada ka hor waxa leeyahay warbaahinta Mareykanka waxay sheegayeen in talaadada soo socota go'aanka kama dambaysta Iran uu qaadanayo waxaana shirka talaadada loo ballamiyay abaanduulaha ciidanka Mareykanka wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo Trump inay meeting galaan oo shirka ma dambaysa go'aanka ugu dambeeya in talaadada la qaadanayo laakiin maadaama mudaaharaadyadii ay xoogaa daciifeen sidii ay wax u rabeen Mareykan iyo Israa'iil ay wax u socon laayihiin ayuu hadda shir ku jiraa ma go'aanu gaari doonaa saacadaha soo socda hal la weeraro muu dhihi doonaa ma talaadada kulankeeda la sugi doonaa ma gif abu samayn doonaa dib u gurasho muu samayn doonaa miska dayn doonaa lama yaqaano laakiin bariga dhexe waa la soo cabaystay Iran iyaduna waa cabaysantaa waxeeda Israa'iil difaacay ku jirtaa saldhigyada Mareykanka heeganay ku jiraan nin walba marka saas keebku yurur maqli jirtay saasa keebka loogu wada dhagay marka xaalku halkaas u maraya hadda warka degdegaan idin sheegay waxa laga soo xigtay aqalka cad inuu shir ku jiro arinta weerarka Iran hadduu go'aaminaa duro waxay kadib ma baciidsanayno wax dhici kara ma ah ma dhahayno in hadda uu dhaco weerarka waqti kasto dhici kara leey haddaba marka sheekada Iran wixii ka soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiinaya ninka Trump la leeyahay haddana wuxuu afka la galay nimankii Cubaanka ah Cuba wuxuu leeyahay haddii aad joojin weysid cilaaqada iyo wax ka gadashada iyo waxa kan Venezuela meelan ku saarayo
Havana caasimadana waxay leedahay Cuba wax aan naga qaadi karto male cid kasta heshiis la galayna wax ka iibsanayna sheekadu marka wadamada ku yaala Koonfur America Latin America oo dhan ayuu ninkan handadaya waxa ku baashaalay nin walba markiisu handadaya hadda waxaaba ugu daran sheekada qosol kale oo aad loo hadalhayo waxay tahay Trump wuxuu leeyahay wasiirkiisa arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Mark Rubio wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ayaan madaxweyne uga dhigayaa kulaha Cuba dad badan is weydiinaya laakiin soo madaxweyne ku noqon kara markaas waxa la ogaaday ninkan inay reerkiisu ka yimaadeen Cuba oo macnaha nin Cuba ka yimid uu yahay ay ka soo haajireen marka ninkan wasiirka arrimaha dibadda oo ah Cubana marka wuxuu leeyahay halkaasan madaxweyne ninkaana ka dhiganaaba ninkan marka wuxuu rabo iska sheegaa Cubankana waxay leeyihiin wax aan naga cunayso male cidda rabnaana wax ka gadanayna haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray haddaba waxaa leeyahay haddaba telefishinka la yiraahdo Sky News ayaa wuxuu qorayaa Trump waxa uu mar kale sheegay in Rubio wasiirkiisa arrimaha dibadda uu noqonayo madaxweynaha Cuba haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay madaxweyne Donald Trump ayaa faafiyay war markaasi ku saabsan arrimahan ninkan inuu ka dhigayo madaxweynaha wasiirkiisa arrimaha dibadda madaxweynaha waddanka Cuba inuu madaxweyne uga dhigayo haddaba Trump ayaa hanjabaadiisa sii adkeeyay uu ku hayay Cuba waxaana la sheegay in ninkan la yiraahdo Mark Rubio uu noqonayo madaxweynaha Cuba isagoo la sheegay in reerkiisu ay ka soo haajireen waalidiintiisu ay ka soo haajireen Cuba marka ninkan wuxuu rabo iska sheegaya wuxuu leeyahay adiga ma hadli karti aniga waa kugu soo duulay aniga xabad iyo qoray iyo waa ku dilaya waa ku soo xiraya waa ninkan waxa leeyahay tin caadi maba muxuu ninkan imtixaan waa leeyahay haddaba marka Cuba iyadana waxay tiri waxa wax ka jira mala adeero waxa rabta samay marka waa la isku dhaarsanyaa meeshaas nimankii Latin Americanka dhan waxay difaacay wada galeen nin walba markii Venezuela madaxweynadeedii lala tagay nin walba loo hanjabayo markaas waxay bilaabeen isticmaalka soo laabteen gumaysigii oo cusub socda hadeer sheekadu halkaas maraysa haddaba waa arkaynaa iyaduna wixii ka soo kordhay ninka Trump nin caadi ah haddaba markan waxaan u gudbaynaa mas'uulkii ugu sareeyay xafiiska Netanyahu ayay qabteen booliiska Israa'iil su'aalo ayaa la weydiinaya ninkan la qabanayo maanta su'aalaha la weydiinayo waa nin hadda ka hor halka ka sheegnay oo loo wado safiirka Britain in laga dhigo ninkan marka waa ninkii hadda ka hor mobilkiisii la jabsaday qolooyinka wax jabsada mobilkiisa ay sir badan kala baxeen sida la leeyahay mobilkiisa iPhone-ka ayaa laga baxay hadda booliisku waxay leeyihiin waxa la baxay ma ahane ninkan isagaaba loo haystaa dokumentiyo inuu la wadaagay hay-ado shisheeye oo ku saabsan dagaalkii Gaza Israa'iil ay ku jirtay wax macluumaad ku saabsan oo aan la ogolayn oo sira ayuu bixiyay leeyihiin marka hadda Netanyahu baaritaana ku socda ninkii xafiiskiisii ugu sareeyay haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray haddaba waxaa la sheegayaa tafaasiil ku saabsan in la xiray mas'uul sare oo ka tirsan xafiiska Netanyahu haddaba warbixintu way sii socotay waa booliiska Israa'iil ayaa hadda maanta waxay qabteen mas'uulka ugu sareeya xafiiska ra'iisul wasaare Netanyahu ninka ayaa la qabtay haddaba ninkan waxaa la sheegay in macluumaad sira uu gudbiyay oo uu la wadaagay hay-ado kale haddaba ninkan waxaa la yiraahdaa waa ninka hadda ah maamulaha xafiiska Netanyahu waxaana la sheegay in loo waday safiirka Israa'iil ee boqortooyada Ingiriiska in loo waday ninkan magaciisa marka waxaa la yiraahdaa Braverman ayaa la yiraahdaa way ninka isaguna baaritaan ku socdo marka waxa la sheekada haday sii weynaato xataa macalinka inuu soo galaa laga yaabaa Netanyahu laftirkiisu inuu baasha baaritaanka
qayb ka noqdaa laga yaabaa. marka sheekooyinkaas iyaguna soo kordhay. qadar xayeysiisa kadib Israa'iil waxay leedahay maanta 6 goobood oo Lubnaan ku yaala waa duqeyn inagoo beegsanayna Xisbullah. dagaalkii weynaana weli lama gaarin. haye duqeyntuna way socotaa. sheekadaas socotaa. labaad maanta aan idin soo gudbinayno axada qaybaha ugu dambeeya barnaamijka waxaan ku soo qaadanay. Israa'iil maanta waxay sheegtay 6 goobood oo koonfurta Lubnaan inay duqeeyeen iyagoo bartilmaameedsanayay Xisbullah meelaha ay ku sugan yihiin. dagaalkan kii ay ku baaqdeen miyaa maya kan waa kii nolol maalmeedka caadiga saaka Gaza soo duqeynay inta kan waa iska caadi. carabtan mar walba jugtaan ka gelinayna ee dagaalka weyn waxaan la sugaynaa Iiraan oo tarooradi ku sheegay Iiraan xaalkeedan meel ku hubsanaynaa kadib aan dagaal weyn ku qaadaynaa Lubnaan. inta ka horeysa waxaan soo gaarnaa ku ridaynaa diyaaraddu waa baxay waxay isaga riday Xisbullah jooga meesha jug Gaza meeshaan joogeen Xamaas jib intaas yaa loo xisaabinaa cid loo xisaabinaa male. okay ayagu marka maxay leeyihiin? ayagu waxay leeyihiin dadka Iiraaniyiinta ah ee la dhibaataynayo ee mudaharaadka loo diidayo ee la laynayo ayaa anagu maartay la jirnaa waa ka soo horjeednaa dadka waxa sameynay. iyaguna maalin walba jugtay ku hayaan carabti. sheekada waa la socod. haddaba aragtay tuso telefishinka Al Jazeera goordhow waxay qoreen weerar culus ayay koonfurta Lubnaan Israa'iil ku qaaday iyadoo sheegtay inay beegsatay saldhigyo Xisbullah ay leeyihiin. waxay ku dhimanaa ku dhintaan dad rayda ku dhintaan maqleen dad ku dhaawacmay iyagu meesha Xisbullah joogtay jug waxa ku ridaay. marka Xisbullah idina way aamusatay. nimanka waa loo aamusan yahay. Xisbullah waxay la aamusatay lama yaqaan. nimanka way aamusan jugtaas laga gelinaa jug waxba ma sameynayaan. ma dagaalka weyn oo la sheegay sugayaan ma wax kale damacsan yihiin oo la yaab la dhici doona lama yaqaan. nimanka shiicada dadku waa ka yaabiyeen. haddaba barnaamijkayga inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa asxaabay meel kastoo aad naga daawaneysaan waa naga intaa barnaamijkii galabnimo like garay oo share garay fakarkiina aragtidiina ka dhiibta inta aan mar kale kulmayno iyo barnaamijyo kale nabadgelyo.